tani waa tilaabo oo ku guuleystay xasan cali kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markuu maanta dhameystiray isku dhafka ciidamada maleeshiyaadka iyo kuwa ahlu sunna wal jameeca ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. xasan cali kheyre oo wehlinayo madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta xarunta 22aad ee gobolada dhexe ee ku taala magaalada Dhuusamareeb wuxuu ku soo bandhigay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo isku dhafay isla markaana uu doonaya xasan cali kheyre inay isaga ka amar qaataan. waxaa jira warar sheegaya in ahlu sunna wal jameeca ay ka shaki qabto in xasan cali kheyre uu ku boodo heshiisyada uu la galay ahlu sunna wal jameeca si lamida tii Axmed Madoobe uu ku sameeyay, taasi oo Axmed Madoobe markuu Muqdisho keenay inuu ku booday heshiiskii uu kula soo galay magaalada Kismaayo. qaar ka tirsan ahlu sunna wal jameeca ayaa walaac xoogan ka qaba sidoo kale xasan cali kheyre ayaa ku qancinaya in heshiiska uu sidiisa ahaan doono, laakiin uu kaga fadhiyo ahlu sunna wal jameeca inay ku wareejiyaan amniga magaalada Dhuusamareeb iyo gaar ahaan deegaanada Galmudug ay gacanta ku hayaan ahlu sunna wal jameeca. sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in xasan cali kheyre uu qorsheynayo in ciidamadii ugu badnaa oo Itoobiyaan ah uu geenayo garoomada Guriceel iyo Dhuusamareeb si uu u wiiqo awoodda kooxda ahlu sunna wal jameeca oo iyagu muddo deegaanadaasi afduub ku haystay. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo soo farageliyay khilaafkii soo kala dhexgalay xasan cali kheyre iyo ahlu sunna wal jameeca ayaa si buuxda taageero waxay u siiyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali kheyre, waxaana macallin maxamuud sheekh axmed madaxa ahlu sunna wal jameeca dhagta loogu dhibciyay in meeshani dowladda Soomaaliya looga baahan yahay haddii uu diidana si buuxda ay kaga soo horjeesan doonaan. deegaanada dadka ku dhaqan ayaa sheegay in cadowgii al-shabaab ay iska saareen haddii ahlu sunna wal jameeca isku daydo in dadkaasi ay cunaqabatayto oo ay gacan ku qabatana ay mari doonaan wadadii ay mareen kooxdii hore asagoo iyaga ka horreysay. hadda wuxuu qorsheynayaa in shirka dib u heshiisiinta dadka deegaanada Galmudug oo 5 bisha Agoosto oo u furo xasan cali kheyre kadibna la wada galo dhismaha maamul loo wada dhan yahay oo Galmudug ay yeelato. dadaalkii ugu badnaa ayuu xasan cali kheyre ku bixiyay deegaanada Galmudug, wuxuuna rabaa in uu geysto mas'uul isagoo hoos taga. inta badan maamulada gobolada ayaa waxay isbidaan awood ah mid ay kula dagaalami karaan dowladda dhexe ee Soomaaliya.